si sahwi ahaana dhacday mar iyo lababa marka sharci ahaan waxaan sameyn lahaana garan maayo marka maxaan sharci salaadaasi aan ku sixi karaa ama haddii iga dhacdo arrintaas oo kale saxiix igu noqon kartaa salaadaydii kusoo dhawo sheekh ataxiyaadka iyo ragcadaha intaba inkas loo badiya ma saxbo haddaad rugni ziyaada ama ragcad ziyaada ama ataxiyaad ziyaada oo ka saad samayso salaadaadii baadil bay noqonaysaa oo aad wax ziyaada ku darto salaadii intii ay ahayd ficil salaada hay-adeedii oo ziyaada aad ku darto haddii uu yahay sahwi hadday tahay ragcad iyo hadday tahay ataxiyaad midnaba dhib ma laha waxaa soo haray inaabad marka hore aduu ku shakido aad tidhaahdo maxal ataxiyaad baad la timid mase laba ataxiyaad baad la timid adoo ataxiyaadkii dambe u fadhiya masalan yaa waxaad ku shakisan tahay ma ataxiyaadkii hore waxaanad u fadhidaa mase waa kii u dambeeyey mase meel qalad ah waad ka ataxiyaadaysaa waxaa laazim kugu noqonaysaa inaad yaqiinta qabsato sidii rasuulku nagu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo aad ataxiyaadkii dambe kana aad ka dhigto kii hore haddaad markaa ku shakisantahay ma kii hore mase waa kii dambe kan kii hore inaad ka dhigto ragcadihii haddaad hubto aadan hubinin inaad dhamaystirtay ragcadihii ka dambeeyey la timaadid ataxiyaadkii dambena aad markaa la timaado haddii laakiin waxa kas ay yihiin ood isleedahay ku hagaaji salaada maya taas ma jirto marka sahwi hadday tahay waxba dhib ma leh wada sujuudoodoo sahwiya unbaad aakhirka samaynaysaa markaad wax kasta ku sahwido oo aad ku sahwido ma dhamaysay mase waxbaa ku haray waxaad qabsanaysaa fikriga odhanhaya waxbaa ku haray kaasaad raacaysaa wixii markaas haraydaad la imaanaysa aad ku shakisanayd wixii shaki uu kaaga jirayna waad iska tuuraysaa waxaad samaynaysaa markaas sidaasaad samaynaysaa oo waxaad samaynaysaa waa markay sahwi tahay markay ka tahana waa saas waxaa soo haray masbuuqba haddaad tahay salaadaa lagaaga horreeyey ataxiyaadkii oo imaamka u fadhiyaad ku xiratay waad la ataxiyaadin mid kalaad la atixiyaaday adoo laba ataxiyaad sameeyadaa salaadaadina labadii ku siyaarsan yihin ama mid ku siyaarsan yahay ha waad la imaanaysaa kulaanaad samayso dhan waa mutaabaco adiga kuma xisaabna saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa maqribka afar ataxiyaad oo aan sahwi lahayn baa gala salaada maqrib oo kale afar ataxiyaad oo sahwi ku jirin baa gala ataxiyaadkii hore imaamka u fadhiyaad ku xirat waad la fadhiisan saad ataxiyaad ko ragcad markau tukaday iyo haddana asagu fadhiistay ataxiyaadkiisii dambe waa la ataxiyaatay laba wuu salaamo naqsaday waad kacday ragcad markaad tukatid waa inaad ataxiyaatay adakaagii hore ilaa taasaa laba ku ragcadda saddexaad markii aad hadhow la timaadidna labada ataxiyaata afar ataxiyaad oo aan sahwi lahayn baad samay marka hadday mutaabaca tahay waxa weeye dhowr ataxiyaad waa imaan karaa saddex iyo laba iyo intaba waa imaanhaya haddaad kaligaa tahay waa saas xaalkiisu sahwi hadday tahay waxaad xaqiiqa yaqiintaad qabsanaysaa oo waxaad ka shakisanta waad iska tuurin inaad taxiyaad kula haraydaad ka dhigin waad la imaan hadday tahay ukasna maya salaada waad kaa buraysaa waa rugni ziyaada ah haddaad ataxiyaad ziyaada ukas ugu darto salaadaadi waa buraysaa marka wadada ku banaa waxa weeye wixii hadday shaki yihiin xaqiiqadaad raacaysaa ziyaadadaas waxba kaa dhimi mayso waxa xaqiiqadaad raacaysaa oo midba waad la imaanaysaa tirada xaqiiqada aad la imaanaysaa sidaas wey wallahu aclam bisawa ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخ سؤال حكتا qofkani wuxuu leeyahay waxaan ku weysaysanaya weel af banaan weelkaas afka banaan oo ku weysaysanaya hadii jeer waxa ku dhaca weelkaasi biyihii fanfaniinka ahaa weysadii markay qaybtii dambe oo hartay biyihii maadaama faniin badan weelkii ay ku dhaceen biyihii qaybtii dambe mustacmal miyay ka noqonayaan haddii saa igu dhacdo sharciyan weysadii ma ansax noqonaysaa saxiix ma noqonaysaa kusoo dhawow sheekh horta biyaha mustacmalka weysada kuma ansaxo ko
biyahaad ku weysaysanaysa hadday biyihii mustacmalka kaaga daataanna ayana hadee biyihii mustacmal bay kaa noqonayaan. laakiin sidaas iskama ahano shuruud badan bay leedahay. biyaha ku daatay horta waa inay yihiin marada koobaad biyaheedii, marada labaad biyaheedu dhib ma leh. gacanta markaad dhaqayso 3 jeer baa la dhaqaa. marada koobaad biyaha ka soo faniinay weeyaanka wax kuu dhibahaya. wajiga markaad dhaqayso marada koobaad biyaha ka soo faniinay weeyaanka mustacmalka samaynaya. marada labaad iyo marada saddexaad biyaha ka soo faniinaa mustacmal ma leh. taas waa shardi inay maradii koobaad tahay biyaha meesha ku faniinay. waxaa kaloo shardiga wixiinaysa shaki ahayna xaqiiqa inay biyihii ku dhaceen aad og tahay. waa laba. waxaa kaloo shardi ah inay yihiin wixii wax biyaha doorin kara. haddii hadda midab kale ay lahaan lahaayeen oo biyo hadda waa biyo waafaqsan biyahan, laakiin hadday midabkoodu ka bedelnaan lahaa inay biyahaas bedeli lahaayeen yaa shardi ah. intaas oo dhan markay isku darmadaan ayo shuruudaas oo dhan la helo yay biyihii noqonayaan mustacmalkaa noqonayaan. maca daalika la yidhaahdaa inaadan taqdiirtaa samayn oo aad iskaga weysaysato od iska hujuunto adoo qadarin halkaad oran lahayd war biyihii kaga daatay oo mustacmalka ahaa oo marada koobaad ahaa hadday ka bedelnaayahaan lahaayeen biyaha midabkooda biyaha doorin lahaayeen halkaad ka oran lahayd inaad iska wadato way iskaga kaa banaanta oo biyaha isaga weysaysato. marka mustacmalka wuu jiraa, biyo mustacmal bay kaa noqonayaan, laakiin waa intaasoo shardi marka la helo. biyihii xanigo waa inay ugu daateen ood hubto ee shakaysanahay ko waxa kaaga dhacay ama biyaha kaaga faniinay maradii koobaad waa inay tahay isla marada labaad iyo marada saddexaad ahay. waa inay wax biyaha bedeli kara yihiin. waxaa soo haray masalan haddaad gacanta dardarsanaysid wejiga markaad dhaqayso, wejigii markaad dhaqdo koobaad ood gacanta rabta inaad dhaqdo, gelinta aad gelisay gacantaas biyaha waxaa la rabaa qalbigaaga inay ku jirto aad niyeysan tahay intaad gacanta kusoo darsato inaad banaanka kula dhaqdo. markaasaa laga taxadiraa. mararka kaloo mid gacanta gelinteeda dhib ma leh ilaa ma mayrmayso mararka kale, laakiin marka gacantu mayrmayso oo xadaskeedii kor noqonayaa waa markaad wejiga dhaqday dabadeeda. ilaa tartiibtii waa waajibe. markaad wejigii dhaqday ee aad gacanta inaad dhaqdo rabto biyaha u soo darayso waa inay qalbigaaga ku jirto biyahaas intaad soo darsatay dabadda inaad gacanta kula dhaqdo. haddaysan taa ku jirinin gacantii markaad ka soo dhex saartay biyihiiba mustaqbal bay noqonayaan ilaa waa dhaqantay gacantii xilligii la dhaqayay baa la gaaray. maradaasna waa la iska ilaaliyaa. waa marka intaad wejiga dhaqdo aad rabta gacanta inaad dhaqdo. qalbigaaga hadday ku jirto inaad biyahan inta soo qaadatid aad banaanka ku mayrtid intaasaa kugu filan. niyatulkhiraafka intaasaa kugu filan. marka biyahaas waa saa xugunkoodu oo sidaas baad uga badbaadi kartaa. sidaasayna ku noqon karaan mustacmal. intaasoo shuruuda markay isla helaan maca daalika inaadan takbiirin oo aadan oran biyahaas biyaha ma doorin lahaayeene aad iska hujuumtood isaga weysaysatana way ku banaan tahay. wallahu aclam bisawaab. ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخ. الله سبحانه وتعالى كاب المريو. سؤال كلا أو بهارة qofkani wuxuu leeyahay haddii aan samaynayo istijmaar ama istidaaba aan samaynayo waxa aan ku samaynayana haddii samayntii aan samaynayay مثلا duburta geesaheeda xanshidii adkeyntii aan ku adkeynayay aan xanshidii ku arko dhiig baan ku arkay. dhiigina dhiig badan ma ahan laakiin dhiig baan ku arkay. kaasi ma noqonaya oo macaynoobay biyo ma aynoobay mise waa macfo oo mar hadduusan isbaal uusan noqon uusan dareersamaynin ma macfu noqonaya. taasi waxaan rabaa sharciyan waa mas'aladaasi in laga jahal bixiyaan doonaya ayuu leeyahay qofkaan kusoo dhawo sheekh. horta waxa arrintaas arrin taxadir la weeye in laga taxadiraa la rabaa. istidmaarka sidiisa waa wax ciriiri ah, xukunkiisu waa ciriiri, waa wax macfi ah. saa daraadeed shuruuda badan uu leeyahay baa waxaa ka mid ah wixii meesha laga tirahayey oo nijaasada ahaa inaan shay kala meesha imaan. dhiig
dhidid anmuuf waxaan hadda tiishka dadka uquysto nijaasta oo asaga carabada fadalaynayo biyahaas qoyana wax aan ahayn wixii meesha laga tiraayo hadday meesha yimaadaan waa tacayalal maaho istidmaarkii ma ansaxaayo biyaa caynoobaya hadday wax kalena meesha yimaadaan markaad ku tiraysid waa inaad si taxadira ugu dirto hadday dhacdo in dhiig yimaado waxay noqonaysaa meeshaas inaad biyo ku dhaqdo istidmaar ma kugu ansaxaayo tacayalal maa weeye leannahu istidmaarku waa shay ciliili ah waa shay loo baahan yahay weliba sabri inaadan haddaadan biyo waayin aadan istidmaar keliya ku kaaftoomin ee aad dhaqdo waa midaan hadalkii naga ka hadlaynao in allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutamahiriin ilaahay markuu soo dejiyey reer ansaar bay ku soo degtayoo yaa nabigu inta u yeeray bu wuxuu yidhi bahaarada ilaahay idinku ammaanay waa maxay reer ansaarow waxay yidhaahdeen kaadi iyo saxro midna nagama timaado ilaa biyaan isaga dhaqna kuma kaaftoonna dhagax iyo qori midnaba kaas baa ilaahay idinku ammaanay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka istidmaarka marka uu ku ansaxahayo ama kuu filaanayo waxaa shardi ah wixii nijaasadii meesha laga tiraayo waxaana inaysan meesha imaan mar haddii dhiig yimid waa tacayalal maa biyo caynoobaya istidmaarkii ku anfici maayo sidaas weeye wallahu aclam bisawa maasha allah jazaka allahu khayran sheekh isla su-aal kale oo ayadana bahaarada qusaysa qofkani wuxuu leeyahay haddii qofka uu iska rafcinayo xadathul akbarkii uu iska rafcinayo inta badan waqtiyada dambe waxay isticmaalaan waxyaalaha shaambada saabuunta qofku markuu biyihii isticmaalaba biyihii jirkiisa markay taabtaanba shaambadii iyo wuxuu ku dhex isticmaalayaa iyo saabuuntii saasuu marka ku dhamaysanayaa wuuna dee rafcil xadadkii buuna sameynaya saas marka ma ku suurtoobaysaa oo bahaaradii ma igu kaamil noqonaysaa mise waxaas o dhan waa inaan iska ilaaliyaa sharciyan in badanoo kamid ah ayaa dhacda ama sameeyaa buu leeyahy qofkaani marka bahaaradaasi sharciyan sidee bay noqonaysaa kusoo dhawow sheekh arrintaas waa arrin gaf ah arrin khalada weeye waana run oo arrin dadka o dhan isticmaalo qofku markuu janaabo ka mayran hayo ama gabadhu ay dhiig ka mayran waxaa la rabaa shardi biyahaas oo ku mayran hayo waa inaanay waxbaba doorin oo wax kala lahayn oo biyo saasiya yihiin haddii qofku rabo in uu isticmaalo shaambo ama saabuun isagoo janaabo ka mayran haya janaabadaasu waa jimaac ama waa junub ama waa waxa la yidhahda gabadhiyo dhiig ka mayran haddii uu rabo inuu saabuun isticmaalo keliya waxay u banaanaan kartaa horta marka hore ha qubaysto janaabadiibau ka mayran isagoo rafcal janaabo niyeysanaya markuu biyihii isku dhameeyo oo janaabadii mayrigeedii u taab noqoto ou dhamaysto kabacdi hadduu markaa shaambiyo saabuun rabaa u isticmaali karaa laakiin hadday dhacdo asagoo weli isdaahirin oo janaabadii iska dahirin inuu shaambo iyo saabuun isticmaala hadday dhacdo waxay noqonaysaa inuu biyaha wado ilaa jirkiisa dareen laga dareemayo saabuuntii ama shaambadii urteed haba yaraatee inta jirkiisa laga dareemayo janaabadiisi maya ma anfacayso janaabadii waa inuu wadaa ilaa dareenka shaygii oo ku mayrtay oo ka dhamaado jirkiisa oo aan sina looga dareemayn laa ur walaa fulaan marka arrintaas waa arrin khada ah janaabada iyo bahaarada khatar bay ku tahay waxaa qofku samaynayaa hadduu rabo isaga oo janaabo ka mayranaya ama gabadhii ay dhiig ka mayran inuu ama isticmaalo ama saabuun horta marka hore ha qubaysto markuu qubayska dhamaysto oo jirkiisa biyaha wada gaarsiiyo oo meel kasta oo laaban oo jirkiisa ah u dhaqo oo meel kasta oo tin kasta oo jirkiisa ku yaal biyihii gaaraan markaa kabacdi shaambadii iyo saabuunta ha isticmaalo dariiqaasuu samayn karaa oo keliya wallahu aclam bisawaab waa isla su-aal ayadana bahaaradii ku tacalluqdo qofkan wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo waxaa jira dadka isticmaalaan oo waxyaalahan alcoholka ay ku jiraan sida daawada sida barfuunka sida waxyaalaha kale oo guryaha lagu carabsado oo dadka inta badan ay ku isticmaalaan hadda dharka loo isticmaalaya waxyaalaha
lagu tukanayo oo gogasha oo kale lagu buubuufiyo wixiina waxaa ku qoran inay alcohol ku jiraan inkastoo wax kastaba ay bersinta u samaynayaan marka waxyaalaha nijaasaadka miyay soo galayaan mise waa macfuu sharciyan marka dhanka loo fiiriyo dad badan baa arrintaasi ka diday markaa sheekh kusoo dhawow waxyaabahaas horta marka loo eego jaanibka nijaasada waxaa la yidhaahdaa kullu muskirin maaye wax alla wixii qoyan oo lagu waasho weeyaan waxa la yidhaha waa nijaaso wixii qoyan xashiishada hadda waa lagu waashaa hadday qoyaan kugu taabatana nijaaso maaha laakiin wixii qoyan baa la yidhi oo hadda waxaas dureeraha iyo wixii lamid ah haddana lagu waasho baa nijaasa arrintan marka alcoholka iyo baraafuunka iyo waxa noocaasa ah waxaa horta la isweydiinayaa ma wax lagu waashaa asagoo sidiisaana mase ma aha markii baxsi badan anagu aan ku sameeyeynay waktigii daraasada waxa weeye masel hadda alcoholka caadiga ah haddeer sidiisa oo u samaysan yahay qofku hadduu ku isticmaalo wuxuu ku samaynayaa dhibaato calooshaa googo-aysa laakiin waali markiiba samayn mahayo jiruu ku samaynaya haddii takyiir lagu sameeyo oo karkaris iyo sonkor iyo nacnac iyo waxyaabahaas dib loogu kariyana wuxuu noqonayaa isku bedelhayaa alcohol dumaalkii khamri buu isku bedelhayaayo qofkii waa ku waalanhayaa maadadii qofka dilaysana waa ka dhimanaysaa marka alcoholka iyo baraafuunka iyo waxaas oo dhan bimujaradii haddeer sida uu yahaya loogu waalan mahayo shaygana waxaa la yidhaahdaa masel markii haddeer sida uu yahay aan loogu waalanayn laakiin markii shay kale loo dumo ama macno kale lagu sameeyo yaa waalidii imaanaysaa iyo daragiskii markaasuu nijaasadii noqonhayaa markaan kale nijaaso noqon mahayo saa daraaddeed hadda waxa weeye alcoholka iyo baalka la yidhahdo baraafuunka iyo sidoodaas ay yihiin kuma samaynhayaan waalidii khamriga oo jiro iyo calooshay ku jiraan iyo xiidmaha iyay kugu samaynhayaan markay waalida samaynhayaan waa mar farsamo labaad lagu sameeyey markaa farsamada labaad lagu sameeyey nijaaso noqonayaan laakiin sidoodaan hadda nijaaso kuma ahan sidaas weeyaan wallahu aclam bisawaab jazaaka allahu khayran qofkani wuxuu leeyahay su-aasha xigta haragga marka la magdinayo ma waxaa laga magdinayaa sharciyan labada dhinac mise waxaa laga magdinayaa dhinaca hoose oo keliya intaasi sharciyan waxaa rabaa in laga jahil bixiyo kusoo dhawow sheekh magada waxaa la rabaa inay saarto wax allo wixii ziyaada dhinaca asalka waa dhinaca hilibka laga jabay waa dhinaca rucuunada iyo fuduulaadka iyo waxoo dhan kaga yaalaan laakiin dhinac walbaba wixii go-aya go-aan oo waxa soo haraya uu maro noqdo ilaa haragu marka uu daahirka noqonayo waxaa la rabaa maadadii oo maqaarka ayd inta ka wareego inuu noqdo maado ah maro oo kale oo markii haddeer biyo dib loo geliyo biyo lagu dhex rido labadii ciladood oo mahara midna waa inaanay kusoo noqonaynin qoloftii haragu markii la qoyo uu qolof noqonayay waa inay meesha ka baxdo urtii u urahayana waa inay meesha ka baxdaa labadaasuba marka wax alla waxa ziyaadada baa la rabaa magadu inay ka dhamayso oo gudaha hilibkaa u badan korka laftiisana dhawartii iyo wixii ziyaadadahay o dhan waa inay ka murxaan oo wixii uu noqdo maro oo kale inuu noqdaa la rabaa sidaa weeye wallahu aclam bisawaab jazaaka allahu khayran sheekh su-aasha xigta qofkani wuxuu leeyahay takbiirta la qaado marka maydka la sido iyo taqliinta sharciyan arrintaasi anigoo aan dood ka qabin amaba aan yani madow iiga jirin kama xaraasi cilmiyan aan u ogaado baan rabaa sharci ahaan in xoogaa la ii dulmaraan doonaya buu qofkaan leeyahay takbiirta marka maydka la sido iyo taqliinta iyo qaabkeedan raba wax yar in la ii sharaxo sharci ahaan ayuu qofkaani leeyahay kusoo dhawo horta waxa la yidhaahdo takbiirtan waa iska shicaar dadku iska sameeyo oo waxaa la yidhaahdaa waxaaba kasii wanaagsan dadku inay tafakur sameeyaan markay maydka sidaan oo ay tafakuraan maydkan iyo acmaasha aakhirada iyo mawdka la dhimanhayo qabrigaan la gelinhayo waxaas qofku inuu tafakuro ayaa horta wanaagsan baa la yidhaahdaa marka midaan hadda dadku iska qaadana waa iska shicaar islaamiyaho ayana waxba dhiba ma laha
waxay meeshii sunnad u noqonaysaa qofkaan xitaa inuu muslim yahay ama waa shicaar islaami ah. laakiin asal ahaan sideeda waxa fiican baa la yidhaahdaa jaanibka aamusnaanta iyo tafakurka ayaa fiican. haddii la sameeyo tan lafteedana waa saasoo waxba baasa ma laha, laakiin middaasaa fiican. dayib, middan kale oo talqiinta nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqinuu mawtaakum bilaa ilaaha ila allah. qofku marka uu dhiman hayo way noqotaa, markau dhintay lafteediina sida lafdiga xadiiska u samaysan yahay waa saas. kuwiina dhintay laa ilaaha ila allah u laqina buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka qofku dhiman hayaana u asala oo la xusuusinayo tawxiidka inuu ku dhinto si uu u noqdo man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna. qofka marka uu dhiman hayo hadalka uu ku dhintay oo ugu dambeeyey uu noqdo laa ilaaha ila allah jannaduu galaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. si ay sidaa u noqoto baa qofka marka naftu ka dhacaysa la rabaa in loo laqino. middan kalena waa sidaasoo mawtaakum baaba rasuulku leeyahay. waxaa kale oo iyaduna soo aroortay nebigu markuu dadka la aasay calayhi salaatu wasalaam muxuu oranayay istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tasbiid fainahu al'aana yus'al. walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya, haddaa la weydiinhayaaye had ilaahay u weydiiya dembi dhaaf. marka sidaasay ahaydoo waa taa rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. tii taas ahayd weeye talqiintu. ilaa qofkaan waa adiga arkada waxaa la odhanayaa habbataka allahu bilqawli saabit, ilaahay qowlka saabitka ah kugu sugo, allahuma sabithu bilqawli saabit. rasuulkuna muxuu yidhi istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tasbiid fainahu laana yus'al. walaalkiin dambi dhaaf ilaahay u weydiiya, qowlka saabitkaa ilaahay inuu ku sugana ilaahay u weydiiya, fainahu al'aana yus'al, haddeeraa la weydiinhayaaye. waa tii marka talqiintaanu oo tii baa la odhanayaa sabbataka allahu bilqawli saabit, allahuma sabithu bilqawli saabit. tii weeyaan marka talqiintuna taas weeye oo waa shaygaa saabitka ah oo mustaxsanka ah oo wanaagsan. sidaas weeyaan. saas daraaddeed baa axaadiista saxiixaynkaa iyo raggii saxaabada ahaa waxay ka dardaarmeen marka la aaso in wakti dheer la dul fadhiyo isagoo si aan idiin weeshado ilaahayna loo weydiinayo tasbiitkaas. intii maxay yidhahdeen neef geela laga qalo oo hilibkiisa laga qaybiyo na dul jooga, xadiista saxiixaynka. marka talqiintu taas weeyaan. waa hadalkaas rasuulka uu leeyahay qofku markau dhinto sidaas ugu weydiiya ilaahay qowlka saabitka ilaahay inuu ku sugo u weydiiya, ilaahay dambi dhaaf u weydiiya. kii baa loo samaynhayaa shaygaa saabitkaa weeye talqiintuna. wallahu aclam bisawaab. maasha allah, jazaka allahu khayran sheekh. su-aal kale oo xigta dhanka waysada, qofkani wuxuu leeyahay masaxa la masaxayo madaxa. had iyo jeer waxaa dhacda in qofku cimaamada ama jalbaabka ama muxuu ahaaye koofiyadda uu biyaha intuu saa uqoysaa u dul saaro oo uusan gudihii timihii iyo hoos u iskaga gelinin. arrintaasi marka ma ansaxaysaa sharci ahaan ayuu leeyahay qofkaani. sheekh kusoo dhawow. masaxa madaxa laba qaybood weeye. qayb waa waajib, wamsaxuu biru'uusikum baa ilaahay leeyahay oo bibacdi ru'uusikum weeye, madaxa oo dhan maahan. qaybihii la masaxaa laazim ahoo midu waa midaas, miduna waa midaan tacmiimka ah oo madax oo dhan inaad masaxdaa. qaybta waajibka ah waa laabud timaha, inta timaha le meel ka mida inaad masaxdo. weliba timahaas aad dul masaxaysa hadday timo dheer yihiin waxaa shardiga inaysan xadkii madaxa ka baxsanayn. marka inaad intaad gacanta hoos geliso imaamadii ama koofidii ama gabadhii jilbaabkii ay wadatay ama garbasaartii iyo gamadii intay gacanta hoos geliso markay qadar masaxdo ayay kii caamka ahaa tacmiimka ah shaygan kale oo koofiyadda ama cimaamada ama jilbaabka korkiisa ayaa laga samayn karaa. laakiin laabud waa in marka hore horta juz la masaxo. saa daraaddeed calayhi salaatu wasalaam rasuulku
wuxuu sameeyey sababdiisoo masaxay asagoo duubkii cimaamadiisii wata ayuu inta gacanta geliyaba qeybta foodaa masaxay markaasuu kii tacmiimka ahaana koofida cimaamadii dusheediiba ku sameeyey. haddaadan jus ka mida madaxa masixin ee aad koofidii korkeedii ama cimaamada korkeedii ama jilbaabka korkiisii keliya ku gaabsato waxba kama jiraan waysadaada. masuxuna waa rugni ka mida arkaanta waysada mid ka mida weeye. baabkaas baad marka u samayn karaysaa. waa inaad jus horta marka hore masaxdo oo madaxii ah, markaas tacmiinkii guud ama waxaad ku dul samayn kartaa koofiyadda, cimaamada, jilbaabka gabadha, garbasaarta, gambada ay qabto, intaas waa laga dul samayn karaa. laakiin shardi waa in qayb madaxa ka mida la masaxo. sidaas weeyaan. jazaaka allahu khayran sheekh. su-aasha xigta qofkani waxa uu leeyahay kelimada inta badan dadku dhagtooda kusoo dhacda ayuu leeyahay oo aan fahmi weynay kelimada kelima ahaan waa carabi. wuxuu leeyahay kelimadan khawaarij wax badan maqlaa laakiin macna ahaan weli si fiican uma aanan fahmin. marka sharci ahaan marka kelimadaasi ma wax meel ka bilowdayba, ma wax sharci uu sii sheegayba, ma wax kelima ahaan oo nooc ahaan oo lista yiri miya? arrintaasaan rabaa in sharci ahaan laiga jaahil bixiyuu leeyahay sheekh. kusoo dhawow. khawaarij horta waxa weeye waa wax sharcigu sii sheegay, rasuulkaa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam. axaadiis aad u fara badan oo mutawaatira oo saxiixayn leh oo sunan leh oo masaaniid leh oo intaasaba kusii sheegay. waxayna soo bilaabatay waktigii sayid cali yay soo bilaabatay. waxa weeye dad tilmaan rasuulku sheegay leh. dadkaasu waa dad muslimiinta khilaafsan, haddana sheeganhaya inay ayagu ku dhegan yihiin kitaabkii qur'aanka iyo sunnadii rasuulka inay ku dhegan yihiin. sifooyin badan baa markaa nabigu u sheegay. sifooyinka u sheegay waxaa ka mid ah waa dad qur-aanka aad u akriya, waa dad salaada aad u dheereeya, waa dad yidhaahda kitaabka ilaahay baan ku xukumsamaynaa, haddana waxay banaysan islaamka dilkiisa. cidaamta oo waaweyn oo ilaahay xarimada oo dhan ayay ibaaxaysanayaan ayagoo u marhaya ayaga mooye dadka kale uusan muslim ahayn ayagoo halkaa u marhaya. marka sifooyin bay leeyihiin fara badan oo sidaasoo rasuulku tilmaamay. sifooyinkooda xitaa waxaa ka mid ah maxluuqa raasi mushamira lizaari kasallixya. waa dad madaxa xirta semberi oo garka weynaysta oo maryaha gaabsada. waa ka mid tilmaamta oo uu nabigu u sheegay. mar kale markii la yidhi noo tilmaam qoladaas siimaahum ataxliiqu, calaamadoodu waxa weeye semberi timaha madaxa inay dhameeyaan ay xirtaan ayaa calaamad u ah. mar kale saasuu leeyahay. wuxuu rasuulku ku sheegay tilmaamahooda ka mid ah inay yihiin dad salaada dheerdheereeya, soomka u orda, qur'aanka jaddigo dusha ka wada akrinaya ama wada akrinaya. haddana wuxuu leeyahay adinka aan akriyayn baa qur-aankaas ay akrinayaan uga khayroon ama uga nafciroon. laa yujaawizuhum taraaqiim, qur-aankaas ama iimaankuba kalxamahooda dhaafi mahayo. marka dadkaasi waa dad rasuulku tilmaamay oo uu yidhi way imaan oo weliba muxuu yidhi kulamaa nashaa qarnun qudica. mar alla markay nashaanba waa la goyn. markii la gooyoba haddana gadaal bay ka dhalan, waa la jarin, haddana gadaal bay ka dhalin, xataa yakuuna aakhiruhum maca dajaal, ilaa kuwa ugu dambeeya ay dajaal la soo baxaan oo dajaal ay waqtigiisa soo baxaan oo ay dajaal la soo baxaan kuwa ugu dambeeya. marka khawaariju saas weeyo waa dad sumadooda sidaa loo sheegay. waa dadkaas ijmaaca islaamka iyo halka muslimiinta ijmaacooda bay ka leexan, caqiida ahaan bay uga leexan, camal fal ahaan bay ugu leexan. dadkana saasay u ibaaxaysanayaan. hadda awsaafta ay leeyihiin wax hadda aan tirin karna maaha, wax aad u fara badan weeye. waana dad aad u xuno rasuulku meesha uu gaarsiiyey. dadkaas qur-aanka akrin oo salaada badan oo soonka badan oo kitaabka ilaahay baa rabnaa keliya, walaysu minhu shayun buu yidhi. haddana kitaabka ilaahay baa rabnaada ay leeyihiin
waxba ugama sugna oo kitaabkaas kumay lahan saa daraaddeed baa nabigu wuxuu leeyahay kilaabu ahli nnaar sharu lkhalqi walkhaliiqa ma qaatalahum kaana awlaa billahi minhum awsaaftaasoo qof wax loo yidhaahdo wixii ugu xumaayana ilaa nabigu wuu ku tilmaamay ilaahay ardadiisa waxa ku dul socda oodada ama khalqi kalaa sharulkhalqi khanaasiirta iyo kalaabta ku jira ayay ka shar badan yihiin buu leeyahay sharu qatla fi samaa wa khayru qatla man qataluun dhulka samada hoostooda qof lagu dilo qofka ugu sharta badan oo ugu xumeeyo yiri dadka ayagu ay dilaanna samada hoostooda qof lagu dilo qofka ugu khayrka badan weeyi waa dadka nooca lagu tilmaamayo waa kilaab ahli naar buu nabigu leeyahay dadka ahlu naarka eeyahoodii weeyi marka xagna waa dadka la leeyahay qur-aankiiba iyo wala akrinayaan oo salaadii bay salaadaa la wala xaqiri kooda markaad aragto buu leeyahay nabigu soomkaagaad xaqiri kooda markaad aragto qur-aankaagaad xaqiraysaa markaad qur-aankooda aragto tala waxa waa inay yidhaahdaan ilaahay kitaabkiisaan rabnaa shareecada islaamkaan rabnaa sunnadii rasuulkaan rabnaa iyo calaamad shicaar u ah inay sidaas ku hadlaan dadkaas weeyaan marka hadee su-aalahan arrintooda looga bogi karo ma aha waa dad jira oo khawaarija oo waktigii sayid cali bay soo baxeen rasuulkuna uu noo sheegay ilaa dajaal kulamaa nashaa qarnu qudica xataa yakuna aakhiruhum maca dajaal kan kuwa ugu dambeeya ilaa dajaal ay la yimaadaan sidaas weeye wallahu aclam bisawaab ما شاء الله جزاك الله خير الشيخ إن شاء الله تعالى سؤالي halkaas aan kusoo gabagabaynaynaa caawa dadka inta badan su-aalaha duuba waxaa kamid ah hadladooda inay codsanayaan arrimo badan oo haysta ay jiraan ka codsanayaan axbaabta meesha ku jirto jamca ahaan iyo shaksi ahaan sheekha in ay usoo duceeyaan hawlahaasi haysto oo dee aadan loo soo koobi karin dhamaan qof walbaba uu raacinayo udaarkiisi uu rabo in lagu soo duceeyo marka insha allahu tacala dadkaasi jamac ahaan in loogu duceeyo maadaama ay in badan codsadeen insha allahu tacala sheekhaan kusoo dhaweynayaa su-aalihiina caawa intaas ayay noogu leeyihiin insha allahu tacala xoogaa xagga farsamadana ha laga raali ahaado waxbaa xoogaa yara laynkiiba aad u buxsamaan filaya kusoo dhawo sheekh alxamdu lilahi wakafa wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa aad baan horta idiin salaamahaya dadka waxaa wanaagsan marka su-aala la isweydiinayo horta hadda su-aalahaas caawa oo kale khayr allah idin siiyo waa su-aalo dadkao dhan nafci u leh waa su-aalo dadkao dhan wada taabta waa su-aalo giddigood cibaadada dadkii raadkeedii ay ka wada muuqanaysa ama loo wada baahan yahay marka soo beri waxa qofka la weydiinayo inay noqdaan ama waxa su-aalaha la keenaya su-aalahaas dadkao dhan wada afaxahaya inay noqdaan ayaa aada u muhiim ah marka raggiin dadkaas hawlaha ka shaqeeya kuwaas xiriirka soo galo oo meeshaas islaamka oo dhan wax lagu baro ayaguna soo galo oo wax ka faa'iidaysanaya oo xiriirka lale dhammaantood ilaahayo waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu ridihiisa siiyo ayaga wax qof la siiyo ayadaa ugu weyne ilaahay raadica ka noqdo wixii xaajaa oo ay tabanayaan dadka hawlaha noo wada iyo kuwaas arrimaha isku xidha iyo kuwaas maaragtay dadka isku soo ururinaya iyo kuwa mashruuca u wada intaba wixii ay tabanayaan oo dhiba ilaahay haw adaa ka kaafin kara ilaahay ha ka kaafiyo wixii khayra oo hididiilanayaan oo ilaahay ridihiisu ugu wen yahay oo iimaan inay ku dhintaan ay ka mid tahay oo adduunyada inay ku noolaadaan sharaf iyo karaamo ay ka mid tahay oo ilaahay inuusan ku xidhiiriyin xoogsiga iyo shaqada iyo xamaalka ay ka mid tahay ilaahay waxaan u weydiinaynaa ilaahay wusci inuu siiyaa faraj iyo waasic weyn ilaahay inuu siiyo intii kurma gaara uu hayso oo ama jiraa ama sharciga ama dhib kale oo ka cabsanaya ama awlaada ama guura ama noocay rabtaba ha noqotee kurba intay hayso ilaahay kurmada ha ka faydo isagaa ilaahay ku filan oo faarija oo kurmada adoonkiisa ku filane ilaahay kurmada ha ka faydo ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhammaan intaas axbaabta oo meesha ku jirta iyo inta hadda ka maqan oon ku jirin intii soo cabatay iyo inta aamusan ilaahay waxaan weydiisanaynaa waxa ay ka cabanayaan iyo waxay la aaminsan yihiin ba ilaahay inuu ka faydo xanuunka alla ka qaado caafimaadtaaba alla siiyo wixii cidhiiri kaloo dhibaataa haysa ilaahay faraj waasaca u ka siiyo camalka iyo shaqada iyo axmaalka ilaahay uusan ku cidhiiriyinoo
shaqo waasicahoo xalaalahoo anfacdahoo ay maaragtay ku noolaadaan oo kaydsadaan oo wax u noqota ilaahay inuu u taysiiriyo icaano iyo kaalmo ilaahay ha siiyo dhammaantaya ilaahay waxaan weydiisanaynaa meelaan joognaba macayaga ilaahay inuu ahaado ilaahay xifdigiisa iyo ammaankiisa halna geliyo allahuma kun macana xaysu kuna yaa caalima sirri fiina laa tartaki sadra cana وعافنا واعف عنا وكن معنا حيث كنا اللهم كن معنا حيث كنا اللهم كن معنا حيث كنا إن شاء الله تعالى إلهي عنا أقبله دعنا إلهي عنا أقبله إلهي عنا أقبله علمك يوحى فإذا سرنا إلهي عنا أقبله إلهي عنا أقبله الضم إلهي أقبله إلهي عنا أقبله كو أو نوتو إلى شبه كو مهاركتك إلى ليذنوبته وإليك أدنك أو كإلى ليه وإحانة يمدك وكإلى إلهي أن نقدقه اللهم إلهي الله أن حفظيه حفظه سياماكيس إلهي أن نقليه انت أصرع عمتي إلهي وحوي دي سننا وحي كتو عمل هيان إلهي نكفيده وفرق دقدق أو سيه مدول ووحه كمان هيا إلهي أو كغابه إلهي كتيريه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين واستعملنا في طاعتك واجعل لساننا رطبا بدينك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.